النور وحروا إلى السود ويسين مع النور صعب يصير معلق صعب ولا 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 بسيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركورة محمد علينا يا عيديد يا سعيد ما ركتا شغلة في عن أو كوميونتي وهايان شغلة في عن أو كوميونتي وهايان مركا وحندي لها أهل التاجر أنا جوا أقولها عيالك إسكولات كشغلة وكله شغلة سوكله وحلو بهاي إن كوميونتي ما ركتا مر والله بدت كله ويكون تيرسن تاي نيجران وما ركتا مركيلو بهاي سبورتي ما ركتا وحيابها سوكله naga taageero insha Allah marka shaqada fiican oo aysan halkiisa ka sii wada insha Allah alaykum ila soo dhaweysiin organization keena magaalada Rochester Rio gudoomiyada ila soo dhaweeya Mustafa بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتلقينا مشان كهالله لكن waxaan rabaa inaan sheego xogaayro facts ah magaalada waxaan deganahay 24 sano ma sha Allah markaa imaanayay waxa ugu soo dhaweeyay brother Aidiid iyo Saeed ma sha Allah anoo youth ah ayay waxay sameyn jireen sports teamam waxa ka maqan meesha xalawaya maanta ma noo mareena marka youngster Muqdisho organization ka barku jiray ma sha Allah laakiin sadartan ba 5 oo si qaateen waxaan leeyahay ma sha Allah magaalada wax fiican baa ku soo kordhiseen oo loo baahan yahay runtii unity-ga waa very important haddii hal organization wax qabanayo waa baan ani waxaan ku jiraa organization-adan muddo dheer waqti dheer baan ku jiraa almost 20 years anoo yaro middle school aan bilaabay one thing aan ogahay waxaa jirto haddii aan nahay magaaladeena waxaa jirto organization badan Chamber of Commerce waxaa jirto foundation badan waxaa jirto capital ayaa jiro waxaan dhihi lahaa ka muuqda meel walba organization ahaan meelaha oo policy da lagu dejiyo for example hadaan every year budget lagu dejiyaa the state-ka oo waliba budget every 2 years ayaa la xaq waa u leeyihiin as organization waana qabatan service-kii waxa kale oo jirto organization kale haday jiraan register partnership ala noqdaa ama waxa la hore baad markii garanta xariisanayo ama iskuulada hoos imaada we have a ma sha Allah jar school jar garanti badan ku baxan noocaas public education-ka garanti badan waxa ku baxan human resource-ga way badan yihiin runtii hadaa fiirisidna percentage ka leena Minnesota waxaan ka qaadanayaa waxa fiican unity markaan dhahayo every organization wax qabanayo ama youth la dhil gareeyo ama dumar la dhil gareeyo ama hala dhil gareeyo maxaa la yiraahdaa odayaal kudigood lacag ka badan ayaa taalo every year laakiin se waxa noo soo qaado waxay tahay dad kaleeto dadkaasna waxay sameeyaan disadvantage ayaa community-da la sii kala qaybiyaa because anaga saa ugu tagana waxa fiican adkeen waxa ku goosan karnaa mar walbaba anagoo unity ah it doesn't matter hadii boqol organization jirto xataa there is enough budget jirto state ka bixiyo every year ama department education noqoto department resource ha noqoto ama local baxata noqoto waxa fiican dadka CEO-yada ama boardka ama directors-ka in inta isku tagaan ay hal unit hal magac adoo organization ka oo serve gareenayo ayaa waxa sameyn kartaa basically wax la yiraahdo partnership ma fahantay umbrella wax ku qaadanaysa marka usually Minneapolis oo kale way sameeyaan laakiin register oo kale kuma arkin ma sameeyaan ma sha Allah laakiin waxa fiican lahayd organization register tago inta isku imaadaan directors-kooda si hadhooti ay u dhacsan karaan ma noqoto maxaa la yiraahdaa workforce ka noqoto maxaa la yiraahdaa state ka noqoto waa waxa xaq u leeyihiin way oo basically out there runtii hadii laga hadlo ma sha Allah organization jiro oo waliba every year ma sha Allah celebrate karayo very ma sha Allah dadka isku keeno waxaan idil insha Allah taala annagoo unity-geena aan ilaalinayno wax walba sameeyno qof walba wuxuu qaban karaa qof youth-ka qaban kara qof education qaabil qof health qaabil kara laakiin waxa naga dhiman waxay tahay networking wax la dhaho
taas haddaan ku dadaalno I can guarantee you millions of dollars of budget stateka inaad ku leedihiin because you're taxpayer. This is your money. Ma aha lacag meel kale ka imaanaysa. It's your money. muhiimadda waxay tahay un networkingkaas hadduu qofku imaado ku organizationkaas ay imaado shalay kan harda boqolaal organization way leeyahay ayagaba boqolaal naga badan annaga way leeyihiin runta taani sheego kudigoodna waxay save gareynayaan annaga ma fahanteen laakiin annaga waxaa ku leenahay xaq magaciyaan ku hadlaynaa language-ka haysana culture-ka haysana diinta haysana intaas ayaa community lagu yahay unfortunately dad kale waxaa jiro oo language-kan ku hadlin laakiin annaga no advocate gareeyo annagana kuwaas baa mar walba ka daba orodnaa waxaan sameyn karnaa anagoo network ah ayaan u doodi karnaa xaqeena insha Allah taala next 3 years sanadkii ugu horeeyay waana soo dhaafay si fiican noo soo dhaafay marka insha Allah next 3 years maxaa aan rabnaa marka inaan sameeyno hadii la yiraahdo waxaan rabnaa inaan sameeyno we have to expand youth development program, continue over the youth sports program, soccer, basketball, education games, objectives, enhance team participation in local, national, international competition, metrics increase youth participation by 25%, secure partnership with at least 2 more organizations to offer resources such as coaching, equipment, or funding. Mental health service action, expand mental health awareness program by leveraging our certified youth mental health first aid trainers. Objectives, over workshop for youth partners, parents and community members to promote mental health awareness. Metrics, hold at least 4 mental health workshop per year and connect at least 20 individuals with the mental health services. Housing and social service assistance action. Enhance the housing assistance program by developing strong ties with the local housing authorities and landlords. Objectives, prevent eviction and help more families secure stable housing. Metrics, increase the numbers of a family assisted from 3 to 8. Since we have helped 3, at least we want to get to 8 annually. Building organizational capacity. Our organization is just started. We don't have a lot of we have a lot of work to do, but we need to invest our leadership development and train for the board staff. Strain international governance and operational efficiency. Metrics, provide the board and staffing training at least twice a year, focusing on leadership, grant writing, and non-profit management. Year 3, sustainable and a long-term impact. By 2026 to 2027, establish a partner permanent community center, which I always have that dream. Action, begin fundraising for a permanent community center space to house all activities and services. Objective, create a sustainable space where the Somali community can gather and access resources year around. Metrics, launch a capital campaign to raise 250,000 down payment for purchasing a permanent facility. Expand social services and legal support. Action, collaborate with the legal professional to offer free legal services, particularly in immigration, housing, and family law. Objective, provide legal support to community members facing the challenges in this area. Metrics, partner with a 2 law firm or non-profit legal aid organization and offer monthly legal clinic. Advocacy and civic engagement. Action, development to civic management, civic engagement program to educate the community about the local government and voting advocacy. Objective, empower the Somali community to take active role in the local government and decision-making process. We encourage all the youth to come forward and see if they can participate part of the government program.
so we can be part of the registered government services or county, Olmsted County. Metrics organize at least 3 civic engagement workshops per year and increase Somali voters turnout by 10%. Long-term partnership and foundation action. Cultivate long-term partnership with a key stronghold, including foundation, local government, national organization. Objective: secure the multi-year funding to ensure the long-term sustainability of our Rochester Somali Community Center program. Metric: secure 3 multi-year grant and increase annual donation by 20%. Long-term partnership and funding. Action: cultivate long-term partnership. Oh, I had that. Conclusion. This 3-year plan focuses on strengthening the foundation laid in the first year by expanding and diversify the service provided. It positions the Rochester Somali community to grow sustainability, increase its impact, and secure long-term stability, ensuring that the community needs are met and their voices are heard. With that, I'll give you if you can have any question, Q&A. haddana waxaan rabaa inay ila soo dhaweysaan macalinkeena ciyaartooydeena wagad Cabdullaahi Morgan. Waxaan u taaganahay meesha waxay tahay inaan ciyaartooydeena basketballka iyo soccerka iyo inaan u muujino sida ciyaaraha kale oo Premier League loo fiirsanayo ama ciyaaraha ka dhacay Spain inay ciyaartooydooda gaalada ah anaga markaas qiimeena anaga hadeed naqato inaan kubadaha oo kubada cagta waa qabnaa sida ciyaartooyda Hadley ila sheegay iyo De Bruyne iyo kulli waa qabnaa anaga Hadley waxaan noo ahay jiray macalinkeena Qalifriika noo ahay jiray Michel Platini waa qabnay Muqtacuti oo ahay maxaa la dhahaa basketballka sidoo kale anaga shiiqa noo matali jiray laakiin ninkan caaw wuxuu noo matali doonaa hadaa maqasheen Gentile wagad waa kana anaga caaw Cabdullaahi Morgan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waa maasantiin kasoo qaybgalka kasoo qaybgashan dhamaantiina dadkii xafladan qabanqaabiyay dhamaan aad ay u maasantiin oo ku faraxsanahay inaan kasoo qaybgalno walaaleen hadallada ay ka dhawaajiyeen dictorka Khalif Rico waa hadallo muhiim ah oo aad noo taabanay marka waxa loo baahan yahay dictorka ardaydiisa waxa ku jiray balantii aad sameyseen balanta aad qabateen inaad kasoo baxdiin balantaasna waxa waaye intii Ilaahay idin waafajiyo oo tabartiina ayaa kasoo bixi kartiin wixii kale awoodiina waxaan ahayn ma qaban kartiin marka intii awoodiina Allah idin fududeeyo marka gudoomiye Ciidiid saakarka waa mahadsan yahay isagana kaalinta uu ka qaato sportiga anagana waan ku saacideynaa anaga Minnesota joognaa 23 years aan wax coach gareeyay aniga gaalo iyo Soomaali isku dhex jiraan dadkii aan coach gareeyay macallimiin waa hadda ilmahooda ayaan hadda coach gareeyaa marka la hadda 6 jir ilaa 14 jir ayaan coach gareeyaa oo Soomaali ah 8 jir ilaa 18 jir oo cadaan waa coach gareeyaa team cadaan ah 23 sano ayaan wax coach gareeyaa Daawud waa iga yar yahay groupkii naga dambeeyay waaye waa Serie-ada waa isagana uu soo ciyaar anigana waa soo ciyaareen laakiin waa ka horeeyay laakiin hadda waa la soo wada gaaray waa kulli macallimiin la wada noqday kulligiina macallimiin wada noqday marka insha Allah waa dadaalina anaga Minnesota iyo Daawudi waa xiriirnaa waa iska warhaynaa ilmo badan ayaa haynaa inaan waxaan wax kale ma aha la nuriidu minkum jazaa wala shukuur inaan lacag ka sameeyno ma u sameeyno waxaan Ilaahay baan ugu dhawaanina inaan ilmahan badbaadino balwada ka ilaalino xumaata ka ilaalino waa arkaysiin sida walaalkeen uu ku dhawaaqay ilmo badan ayaa xabsiyada ku jiro oo shabaab ah wax kale lagu badbaadin karo waxa waa in ilmaha busy laga dhigo activity badan in la geliyo hadii waqti loo waayo ilmihii aabayaashii hadii ay fadhi ku dir iyo meel kale ay ku mashquulaan ilmaha dad kale ayaa u sheekeynaya hadii ilmaha waqti aad geli weysay dad kale ayaa waqti gelinaya marka aabayaashu waxaan ku dhiirigelinayaa ilmaha inay waqti aad gelisaan aniga ilmaha cadaankan ku jiray hal cunug ayaa waxa argaysa 3 activity ku jiro waa lagu keenaa waa lagu soo waxa lagu leeyahay macallin 10 daqiiqo soo daaha ama 10 daqiiqo ka hor ayaa laga kaxeynaa because waxa loo sii wadaa activity kale in busy laga dhigo guriga markuu tago homework uu suubiyo serialkiis inuu seexdo anaga waxaas dhan way adag tahay markaas waa aragnay dhibaatooyin badan oo community ka jira hadalkiina ku dheeraadmada raali ahaada laakiin aabayaal badan yaa waxay u baahan yihiin ilmahooda inay waqti geliyaan meelaha inta fadhil lahayd ama
fadhi ku dir aad ku mashquuli lahayd cunugaaga waqti geli ilmaha marka aragna tournament yana aadna travel team wadna hooyo aabo awowey kulli waa wada soconaan fasax waa ku soo talagalayeen anaga intaas ilma coach gareena oo Soomaaliya hal aabo Soomaali ma aragno hooyo noo imaado oo iska miskiin iska tabcaan afar ilma shan ilma kala gadaal ordayaan wax ka socdo ma aabo dhan ma aragno aniga inta Soomaalida hadda waxaan wadaa 15 sano 3-4 aabo oo waliba banooni wax ka fahamsan yahay maad inta kale hooyooyina arkaysa bas ilaahay hooyooyinka khayr Allah siiyo juhdi badan iyo waqti badan ay geliyaan marka aabayaashu waxaan ku talnaa ilmahaaga ina waqti gelisid ilmaha waqti la geliyo waligood ma iloobayaan hal mar oo aabay shineemi ii waday Soomaali inta joogay waligiis hal mar oo filnigii ilaa hadda waa iga go'ay laada hal mar marka maxaa u maleynayaa marka ilmaha in waqti la geliyo aad ayuu muusin investigate waa ilmaha wax kale la qabanayo ma jiro investigaaga waxa meesha uu noosha ilmaha adduunkan keenay special wadankan adaa ku dhalay adiga mas'uuliyad ku saarantay adiga ayaa laga baahan yahay marka waxa in dardaarma aabayaasha waliba special aabayaasha in ilmaheena waqti aan gelino waqti siino meelaha kale waqti ku dhumeeyna waxa ka qeyr badan ilmaha brit waa loo weydiinaa ilmahan ilaahay waa ku weydiinaa mas'uuliyadooda diintooda salaadooda waxaadna loo weydiinaa marka dad fadhi ku dir ku mashquushid ilmaha ayaa u baxaya ilmaha ayaa u jeedo hooyo kaligeed maxay qaban kartaa marka hadalkan waa ku dheeraa raali ahaada dhammaantiina waa idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh markana waxay la soo dhaweysiin macallin Marshaale macallinka naadigeena Batroolka macallin Marshaale السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan sheego ma garanayo waxay la sheegi lahaa waa la sheegay marka hadda waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ciidiid iyo dadka abaabulay xafladan waa aad u qurux badan waxaan rabaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu la garab galo annaga hiiliyo waxaan la taaganahay waxa la wixii karaankeena wassalaamu calaykum waraxmatullaah markaan waxaan rabaa inay soo dhaweysiin laacibkeena qaranka best playerkeena madaxi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن السلام يا سلام تسلم كأنك كود السلام يا هذا علينا يا دليل إنه مرتقاتي مجالة من روجستر كوميونتي سومالي كوميونتي سنتر وأنا وحفي عنه لقبته لكن هول بدل اللي كاتبه يا سيدي محمد ديري dadka ka soo qayb galay Khaliif Rico Maxamuud Ciise Shiiqa dadkii dhan waxa idin dhihi lahay waxaan ku darsanayaa waxa jira wax la yiraahdo nacayb adoon waxba ogeyn ayaa wax walba iska naca marka dhibaatadana haysato oo aragtaan caruurteeni waa wada halaabeen inta anaga isku maqneen qabiil ahaan isugu maqneen oo la dhahay anaga reer hebel anaga reer hebel marka waxaa idinka codsan lahay inaan caruurteena barno inuuna nacayb jirin ay walaalo yihiin kulli inteena helaysan inaan soo qabanno oo annagoo isticmaaleyno saciid iyo ciidiid runtii mandeeqa ka hadashay Minneapolis waxaa jooga gabdho homeless ah yaa qaban karo annaga qaban karno anagiina waa kasii jeednaa halkuliistu waa isaan waay no runtii waa inaan qabanaa dadkeena wax u tarnaa intaanu sana community ku dhex jirnaa waa qabanaa wax walba laakiin wax soo bax ma laha inaan wax soo saar sameeyno waay inaan isku tagno unity marka haddaan isku tagno oo is qabanno wax walba noo fiicnaanaya laakiin haddaan kala go'sanaa caruurteena banaan ku jiraan dadkeena dhibaataysan yihiin waxaan noo qabanaya ma leh hadda ka hor waxaa maqlay magaalada Minneapolis oo ka shaqeynay Brian Cole community meel la dhahay Minneapolis mayor Rayback Rayback oo dhahayo waxaa jiro 8-9 community every day imaad 8daas kan ugu dambeeyaan qaataa waxa ay leeyimaadaan macnaha maxay tahay waa kala ordeena meel wada ordoyna haddaan wada hadalno anaga wada sameeysan karno
budgetkan waa jira laakiin budget waxaa ka fiican khayrka ilaaha maanta daa qof ku farxisid ilaah kugu farxaa laakiin midda ugu fiican waxay tahay annaga yaanu xisaabin lacag masaajidana galno dhaliiradeen aan soo qabanno masaajida halkeeno hal isugu tago isboortiga hala keeno sidii uu yeeli jiray ninkii lahay elmen oo kale taariikh waay marka waa ku dheeraaday hal liga ahaado magacayga maandeeq sheekh nuur ali dhahaa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa wiilashan maanta wax soo abaabulay especially shaqada ay qabteen wallaahi waa arrin aad iyo aad u muhiimsan saciid arrintuu uu sheegana sida runta aada ii taabatay maadaama aan ahay gabar Soomaaliyeed gabar homeless waa wax ma artaqaanaa aad iyo aad u dhib badan hadduu wiil yahay labadaba kuma fiicna gabar iyo wiil laakiin same time gabaraa sii daran oo homeless ah marka aad iyo aad idinkaga mahad celinaya waa mahadsantihiin xilka aad haysaana ilaahay ha idinla sii qabto waa wax muhiim ah ma taqaanaa wayna fiican tahay community aad leedahay aad ogtahay aad dib ugu noqon kartid ood ogtahay inay ku caawinayaan runtii taa kadib marka waxaan rabaa inaan waxaan aad ugu faraxsanahay inaan bartay Soomaali dad oo ma taqaanaa oo very famous ah yes Qafa wuxuu dhahay waa Somali Ronaldo I'm like wow I want to see him so Michael Jordan and all that stuff so I'm very humble aad u mahadsantihiin runtii inaan barto sheekha waliga maqli jiray laakiin hadda maanta run aan u arkay iyo ma taqaanaa dad kale barasho wanaagsan mar kale inaad DC kooda imaateen yaan u malaynayaa DC waa meel fog aan runtii aad u jeclahay Soomaalida isugu xiran tahay hadda koonaan Virginia mar tagay annagana waa isku xiranahay sad arkaysaan qof kale wuxuu yiri qabiilka meeya geeya insha Allah ilaahay naga saar qabiilka waa wixii meeshaan keenay oo maanta kala sii saaray dhibaatada wili nagu haayo laakiin waa mahadsantihiin kulligeen barasho wanaagsan and thank you السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما فيلني إن هاد لايو سبرايز يقدر عيدين وحن لا مركورة ولا له شقف عن ولبا يا قبتين هذا الكنا وحدة كهرباء مدهايو لكن وحرا إن كدر صدق روجستر وبدنتين elected Somali America إنه مجدنا تنكوال دكوكم كورجنا وحواي ميسكا لقت الله وانا تكويرتين كانسلمان chairman school board please ومدة دكتورات الله مدة كلا وأدو فكر جري ونربع إيدي صوبنديو وحنقول يكون فكر جان جعلاي بعد ما تكون بدنتين إن جوهر يو روجستر عدوار لسان سيدنا كلا هذا النقطين واللي بقى الحقوق بتين وبيراها واللي بقدر كانوا عن كويه هاي beeraha xuquuqabatiin iyo caafimaadka labada number 1 inuu galaan America jeceliin Minnesota labada issue aad ku korjeerinaya waliba Jowhar aan xog rabaa saartiin insha Allah madaxda xagga joogtina Argentin mayarid naag cusub aan u malaynay tahay waxaan diyaar u idin garab istaagno sida aniga sharax u sameeyay idin tusno laakiin nasiib darteena fuuntay noqotay tiinii fuuntay noqonin wax u qabto ummadii inta kaliya isku koobina dibadeen waxa loo qabto marka waa maasantiin ma filina hadlaya laga raalaado warbaahinta iyo doorka ku leedahay horumarka bulshada in baan kelmad ka oranaya kulay siyaasiyiin waa joogtaa dadka community u shaqeynaya waa joogaan warbaahintu waa udubka saddexaad ee dawladda ama bulshada marka laga yimaado institutionada kale caalamiga ah ee sida tooska ah ama sida sharciga u shaqeeya waa qaybta ugu muhiimsan ama horumar ka shaqeyn karta ama duminta ka shaqeyn karta kolka inay la shaqeyso community-ga oo ay baahiyaan waxyaabaha horumarka leh oo ay warbaahintu hadda waqti xaadirkan aan isleeyahay door muhiim ah ama door laxaad leh ayay ku jirtaa waa muhiim inkasta oo xogaa dhaliila iska jiraan oo social media iska farabatay oo kolley xagaldaaceeda ay leedahay qof kastaaba markuu page furtay warbaahintii sida caadiga u shaqeynaysay waxa la moodaa inay shakhsiga u shaqeysay marka kolka
reer Rochester anigu waxaan ka yimid magaalo khayr badan runtii oo Jarmalka ku taal oo culimada aad u casfinta haddana halkan maadaama oon waqti xaadirkan joogo waxaan rajaynayaa khayrkeeda inaan halkan kala kulmi doono tiina way muuqataa waxay ka muuqataa caawaba in bulsho isku dhisan oo runtii gacmaha haysataa ay joogaan halkan oo ka shaqeynaysa sidii bulshadu ay u noqon lahayd kuwa codkooduna hal mid noqdo wada jirkooda iyo wada shaqeyntooduna uu hal mid noqdo waan sii boorinayaa inuu gudida hadda joogta iyo gudida kale ee iman doonta iyo cid kasta oo jecel inay horumarka bulshada ka shaqeysa inay ka shaqeyso uun isku xidhnaanta bulshada iyo sidii ay u sii socon lahayd wada shaqeynta bulshadu ayaan ku boorinayaa waana mahadsantihiin magacayga waxaan idhaa Cawaale Geed Raage waxaan ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Minneapolis waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan sida quruxda badan loo soo agaasimay anoo u mahadnaqayo weliba dadkii soo abaabulay waxaana weli aan rabaa in aan taageero ururkan Rochester Somali Community Saciid iyo Aidiid iyaga lagu casuumay meesha waxaan kaloo aad iyo aad ugu faraxsanahay in dhalinyaradii aan muddo arag aan meeshan ku arko laacibiinteena inay joogaan waxaan aad ugu farxay in at least la magacaabo magacadoodana la sheego lana xuso maadaama muddooyin badan laga boodo mar walbo marka aniga asxaabna waan nahay waana soo dhaweynayaa waxaan kaloo rabaa inaan aad u soo dhaweeyo communitygan cusub oo hadda sanad jirsaday waxaan la dardaarmayaa dadka reer Rochester in ay garab siiyaan ama dhinac istaagaan ama gacan u noqdaan ma aha kaliya in ay ka sugtaan deeq iyo donation ay siiso agency ama organization kale oo aan macno lahayn dadkiina ku xirnaada dadkiina wax u qabta dadkiina ayaga ay wax ku tihiin ayagana wax idin tiri doon wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. horta marka hore la janaana caawa laakiin waa koobi waaye ciidida wuxuu caawi ma waxaan rabnaa waa yeelisa meeshaas yar ku xuboob naga dhaaf marka insha Allah alxamdulillah hadda qofka saa qudbeeyay marka waa iska shaacireysanaynaa soo kay ma ay saxba marka horta waxaan ku faraxsanahay oday ii karo waxaan wuxuu leeyahay ninkan Soomaali xamar ma ciyaartana waa ciyaar waxay tahay waxa u baahay ii kariya markii adiga xagga shaqanimada u badisay ana dhinacana u badiyay niba meel u badiyay Soomaali marka alxamdulillah horta intaan shaacir aan gelin waa mahadsantiin dad badan oo sharaf la maanta noo yimid famaysa saaxiibkii ataa madaxaya jooga caawa lajan caawna sheegi weyseen khalifa joogo kulli waa la jooga ma lama sheegi kara moogta rag badan oo isqaranayna waa jiraan nima meel u badi xataa ninkan maxbuud qoryoolay lajan uu ka hay laakiin lama sheegi kara moogta yaani waa ninka ugu horeeyay qoryaha kan afgooye كان محمود وما بيسا حاولات دقور سقوريا ساب الله marka alxamdulillah waa iska shaacirina hadaa waxa baqlay saaxiibkay DJ wuxuu yiri mataqaana Rochester hal weynay meesha naaga keeno ku gabdho keena nikala dhaay hadaa gabdho keeni karin bal Ethiopia naagu aadreen faysa وفهمي مرة وحير دت كان لاعبين تكوي مركان يراي دت كيو شيء بوقتها قبلها قبر كبيرة إنسان تروثه ما إسكوا وفيكشن وشيء شاعر وياه قبر توين نحن عيسى ربانك قبلها قبر كبيرة وحيد تروني وهذه كان يا وعيار جرت عيارت وسؤال بوقتها مركب هداي بحي وكفكرة بوقت كواحد هو عيار جرى كفكرة كي قبل توين يسوقي سمرة بحي موجود نرفز أنا هاي وحيد تري خليفة لو هبرة لو عي أذو نيو لقانا وقالوا عين لاعب نوتي حاجة ودي رجت مركا على أي حال أنا وحاول دير جري كواحدة محابيس تقال شلون دير جري
وقرت صباح تكلا صاحبك محمد علي عاو حالو قال إذا كوينا وفرحسيه أدا واحد كسوفك وكل إيه بركة كسونا قرنكوي ماشي معايا يا قولوا لها بركة كسونا قرنك زياد بروح إحنا لغة بقى الرايبل وفهميسي marka على أي حال soo dhawaada magaalada magaalo iska fiican way wax dhiba ma jiro anagu dadka Rochester degan waxaan dad waxba aan laga qaadan baa dad wax maqlayna ma leeyahay hadda koornimo waxa la yiri gabdhaha raali ahdaya hadda koornimo xaafad soo galay markaasuu maamo yar oo qurux badan ayuu la soo galay aniga ma haya ninka la waayid maamo yar oo qurux badan oo iska wata fiican oo dhisande rag badan dhareeray laakiin insha Allah okay way marka maamadii markii uu xaafadda soo barsiyay waxa xasuusan kara Maxamed Cali iyo Khaliif Riikay iyo madaxiyo waxa xasuusan kara yaraantii darbi la fadhiisan jiro gabadha qurux badan soo marto waa la fiiri jiray moogta على جلس ويلو كم غير شكلش يرسق لك مركي قبلنا مركو باش صبر سي لا قروح بدل ماذا وحير مدخولتين وكاي وحير متغنى ورقبنا اما متغنى لقاقا قشاده ولا صيحدا وبلاي وباش الدربي هذا لو فديا مركاس وحير وما دان كلا بخكوي دان كلا بخ هلا قشاده marka la yahay meesha soo ku soo koobina nin odayo asna sharaf laha joogo barataha asana gacan si engineer from India way laakiin waxa ogaada ninka India waligiiba watiga Bangladesh uu joogi jiray waxa ku haray macluumaad waa nin iska fiican iska dukado inkastoo salaada maalmahan oo iska YMCA way sababtoo ah jimcada markuu imaanka qudbeynayo waxa qalbigeeda ku jira waa taqaan waxa leedahay warbar buu dhameeyo muuna xalal atago bariiska ka soo cuno marka macallinkan waa baasan yahay walaalkay sidoo ma jooga asaga ina sidoo waa galihina forjadiis sidoo waa galihina ya hardisi alwani arkaan sidoo horta nin sixir ay soo dirtay hardisi waa iska la qaliif sixir ay soo dirtay ya Abbas iyo oleera sidoo kaliya iska deganaa shiishada iska cabdi jiray TV yaro black and white ay yile sidoo ay la soo degay marka shaqadan ka soo baxa boogta xogaa yar qaada iska soo qaata marka wuxuu bilaabo qaadka xaraan way hadda guriga jaarka ma dhigo boogta marka shiba ka yare nalkan gooyay markaas wuxuu yiri korontada waa la gooyay boow qaadka tir xaraan waa korontada xaraan way ku yiri soo agarto ba maalin wuxuu suubiyay TV gaariga ka booya iska fiirsan jiray boogta albaqar uu saara marka alhuda uu saara marka saara warnay albaqardan waa badatay bal xogaa yar qaadkay waxay ka cunay ka boogay ninka waa waxa laga wuxuu gurigaana iskala war guriga marida aan habeen marqaasan ku yiri gurigaana ku siiyay waana ka naqdan ku yiri marka reerdiisii sidoo cishta laqsa wax salaam insha Allah